salaan kadib waxaa maanta sharaf iyo mudnaan ah inaan maanta halkan aan isugu nimaanay xiritaankii xafladii trainingkii noo socday 3 maalin runtii mahadaasi alla baale ilaahay ka sokow waxaan aad ugu mahadinayaa xildhibaan garaad oo si caaqibo leh cilmi leh aqoon leh way aragnimo leh waxbarashadii maanta ku saabsaneed halkan 3 maalin ka socotay oo ku saabsaneed baarlamaanka iyo doorkiisa nabadda iyo doorka ay ku leeyihiin shaqadooda si fiican oo tafatiran uga bixiyay iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan aad ugu mahadiyo ka soo qaybgalayaasha oo ahaa ka soo qaybgalayaal aad iyo aad oo caaqibo badan ixtiraam badan aqoon-yahano ah si fiicanna su'aalo muhiim ah meeshan ka soo jeediyay inta ka sokow 3 maalin oo halkaan aan isugu nimid waxaan ku baranay darsin aad iyo aad muhiim u ah oo noo faa'iido noqonaya dhammaanteen mustaqbalka dheer iyo mustaqbalka dhow labadaba wuxuu ku saabsanaa baarlamaanka shaqadiisa iyo wuxuu qabta maalinka koowaad oo si fiican uu xildhibaanka noogu soo koobay noogana dhaadhacsiiyey muddo aad u dheer sida u kala baxaan shaqada uu leeyahay iyo qaabka uu ku dhisan yahay structure-ka baarlamaanku yahay sidoo xigto maalinkii labaad waxaa laga sheekeeyay qaabka nabadeynta iyo doorka uu ku leeyahay baarlamaanka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah in la barto la ogaado waxa ay tahaybo baarlamaanka doorka uu ku leeyahay nabadeynta qaabka uu uga qaybgali karo qaabka uu wax uga tari karo iyo qaabka maadaama uu yahay hay'adda ugu sareyso sharci dejinta functionska uu ku leeyahay iyo doorka uu ku leeyahay roolka laga rabo inuu nabadda ka qaato aad bay muhiim u ah marka sidoo kale maalinka saddexaad waxaa halkan ku soo dhameyseen oo aad si fiican aan ugu mahadnaqaynaa xildhibaan garaad sidii uu sida fatiran oo cad uu uga sheekeeyey sooyaalka baarlamaanka laga bilaabo 1954 iyo maanta meeshuu taagan yahay taariikh dheer buu ka soo sheekeeyey qaabka u dhisan yihiin qaabka loo soo maray iyo sidii oo ay u kala horeeyeen mas'uuliyadda iyo sida ku kala tagtay sidaas darteed si fiican baan barnaamijkan isugu dhacay soo gabagaboobay si fiican baa aqoontiina iyo way aragnimadiina looga faa'iideystay waan heynaa group discussionska aad sameyseen iyo waxaad uga hadasheen su'aalihiini dhammaan way noo record gareysiin waana soo saareynaa waana cayinayna meel arko oo aan ku muujin karno taariikhda dhow iyo taariikhda dheer labadaba waa wax qoran meelna waan dhigaynaa macad ahaan intaas ka sokow waxaa guud ahaan hambalyada leh sida aad u ixtiraamteen xildhibaanka u soo dhaweyseen ka soo qaybgalayaashiina sidaas darteed waxaa idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin ka soo qaybgalaya waxaa laga yiraahdaa mustaqbalka dalkan waa dhalinyarada meel walba adduunka wadan walba mustaqbalkiisa waa dhalinyarada mustaqbalka waa dadka soo koraya dadka soo baxay aad u fiicnaayeen qodobada Cabdirasaaq uu sheegay oo xildhibaanku garaad oo idin baray waxyaalaha loo baahan yahay hadda ka horan maalin waxaan arkay airportka Uganda ku yaalan oo ka dhoofaya bas wada ciyaal yar yar oo uniform school xiran oo aad u yar yar teenager ka yar yar markaasaan weydiiyay waxaan dhahay ciyaalkan muhiim la dhoofinayaa oo saf la geliyo basas laga soo daadinaa markaasaan yiri maya waxa iskuulada loo geliyaa wareegto iskuulba maalin isbuuca markuu dhamaado weekendiga Saturday-da airportka la keenaa diyaaradaha parking-ka ku jira alla saaraa ilmo yar yar oo 10 jir waxaas way diyaarad waxay arkaan iyadoo duulaysa waliba hal airport bisu dalkaas qaba wixii intee baadeerkiisa degan bisa arka kuwa kale xataa ma arkaan iyadoo duulay waxaa la xigilnaa diyaaradda waxaa la tusaa kabiinka waxaa la tusaa kuraasta waxaa la tusaa banaankeeda jaranjarada xalda diyaarad saani u taalaa saana loo raacaa saana loo fadhiistaa sunka loo xirxiraa kadib waa la dejinaa waa diyaarad baarkinsaga jirto waa la dejinaa basaskooda lagu qaadaa guryahooda loo celinaa meeshaas waxaa laga soo dhisaa inuu cunuga barto wax kasto oo caalamkan la isticmaalo
markii idinka inaad inta isu timaadaan leedin baro baarlamaan in soo shaqeey in wax ka ogaataan waa arin aad u fiican kulliin siyaasadda wada dhigataan arts iyo scientific la wada dhigtaa la kala dhigtaa laakiin inuu qofku ogaado xaq uu leeyahay baarlamaankana qof kasta gali kara injineer gala dhakhtar gala hadda waa ku jiraan aad u fiican tahay ra'yigiisa inaad sii barataan waxa kaleeto muhiim ah baarlamaanka nabadda muxuu ka qayb qaataa idinkoo dhalinyaradii ah axsaab noqda baarlamaanka gala nabadii halkaas ay ku dhantahay wadankan hadda axsaab u socda waxaan arkaynaa markii 2000 laga soo bilaabay ilaa hadda waxa 18 sano oo aan yeelanaynay 4-5 baarlamaan oo mid kasta midka kale ka duwan yahay qaabkii lagu soo xulay mid u eg ma leh ka soo socdana completely waa ka duwanaana hadduu ilaahay yiraahdo wuxuu noqonaa habkan axsaabta marka wuxuu noqonaa midka aad jaanis fiican u heshaan ilaahay xalkii idinku soo duwo inaad dalkan weyn haleeshiisiyo ka qayb qaadashadiisa gelisiisan ay idinku fududaato oo idin hor istaageen habaro idin hor istaageen idinkii kartidiinii firfircoonidiina iyo noqon doonaan kan soo socdo kuwa kalena hadduu ilaahay ilmiicidi ilaahay u gaarsiiyo waxay noqon doonaan kuwa kale oo ka si fiican hadba saa annaga u dadaalno ee ku xiran tahay haddana dadaalkeedii wuu socdaa iyo dhiirigelinteedii u malayn maayo in 30% dumarkeena odayo haddaadan gabarkeena warqadaha kaa qaban ma waxaas dhan waa laga baxaa waxay noqonaysaa dadaalka iyo axsaabta iyo deegaanada hadba sida isku maamulaan maxaa ka quseeya baarlamaan nabadda ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa adoomadiisa uu sababta uga dhigana waa dadka sharci dejiyayaasha ah hay'adda ugu sareysa sharci dejinta la wax ka hooseeyo male sharcigiis alla deji waa ayaga dadka ku control baarlamaanka waxa laga rabaa anaga shariicada islaamka 100% dalkan lagu wadaaya oo wax kale oo ka fidin kara diin kale xataa inaysan jirin aan qoranay cidi ku control sharciga ilaahay uu yiri waa baarlamaanka marka inay idinka noo noqotiin wax aad u fiican waayo oo nabadana dhalinaya wuxuu ilaalinayaa qofka cirdigiisa hantidiisa cilmigiisa waxbarashadiisa difaaca dalka inaan lagu soo xadgudbi karin gudihiisa inaan la isku soo xadgudbi karin qof inuu qofka kale ku aabiyoon karin wixii nabad darro dhalinaya in gacanta lagu qabto waa ayaga dadka ku kor ilaalinaya wasiir kasta iyo madaxweyne kasta dadka ku kor ilaalinaya inuu dadka ku xadgudbin xataa waa baarlamaanka marka baarlamaanka qaybta uu ku leeyahay nabadda isay ka bilaabatay isay ku dhamaatay dhammaan asaga aad u soo uritay sharci dejiyaha sharci ilaaliyaha sharci dhaqangeliyaha sharci kontroolaha waa isaga waxaan aad u soo dhaweynaynaa 3 bari ka badan inay noo noqdaan seminaarada noocaana dadka baarlamaanka hadda ku jira oo xilwaanada nala jooga ay ka mid yihiin ay noo sheegaan inta uu kala baxo si idinka laftigiina idinkoo ka haysatiin directionka aadleed markaa gashid baarlamaanka directionka qaadan lahayd saa nabadda uga qayb qaadatin aad jaa taqaanidba qaybta ka mid noqonayso arinaad iyo aad muhiim u waaye 3 bari ha nooga bato wax badan ha laga sii barto baarlamaanada caalamka si u dhaqmayaana inaan u dhaqanno oo dhanka wanaagga anagoo ka qaadanayna waxa xun mako inaan koobiyeysano marno marka inaan baarlamaanada caalamka xataa baranno oo seminaarada soo socono aan u soo qaadano chapter iyo clips iyo ahaan qaabkay u dhaqmaan ayagoo u kala baxaya marna lagu saleynayo madhab wixii ay aaminsan yihiin oo kuwan midig iyo bidix iyo dhexe isu bixiyo marna lagu saleynayo baarlamaan caalami islaam asna sidoo u kala baxo asna wuxuu leeyahay jihooyin u kala aado iyo wax lagu barto marka fiirsid marka adduunyada si u dhaqanto oo adina isfiirsida u dhaqanto oo shariicadina aafid waxa ku soo baxaya wadada tooska ah oo saxda adoo ka saayana waxa jira saxaabi dhahay hadda ka hor laga hayo inuu quraanka 14 ku aqaan aayadaha qaar kood markii la aqrinayo waxa u maleeyaa inay hadda soo degtoon ku baraarugsanayn because wax aad taqaan oo waxa jira markii lagu sheego sidii waxaan aqoon amal aku dib ugu soo baraarugaysa oo leedahay oo saana ma ahayd binaadana taa waxa u baahan tahay sida muraayada kale in maalin walba lagu nadiifiyo boorka laga qaado la qalajiyo la qurxiyo wixii lagu qalajina lagu qurxinaana waa seminars iyo wax soo sheegid iyo wacyigelin waana dad shariicada islaamka ay tiraado dadka aan waxba baran waa dadka isla weyn ama xishooda labadaas dadka ka reebto inuu hor u socdo oo wax bartaana xishoonina hana isweynaysiinina
tababarada noocaana insha Allah ana loo badiyo anaguna ka soo qayb qaadanayna billahi tawfiiq salaan kadib aad iyo aad ayaan runtii aan ugu faraxsanahay in aan isla soo gaarno qaybihii ugu dambeeyay oo xiritaanka seminaarkii noo socday maalmihii aynu soo dhaafnay saddexdii maalin ahaa aynu uga hadlaynay roolka ama doorka baarlamaanku uu ku leeyahay nabad dhisidda Soomaaliya oo runtii laba qaybood oo runtii aad u muhiim ah ama laba variable aad u muhiim ah aan uga soo hadalnay waxaan markii ugu horeysay ka hadalnay baarlamaanka iyo sida uu shaqeeyo iyo waxa uu yahay iyo maxay ahayd maalmihii dambe oo runtii ayadana aan ka hadlaynay nabadda waxa ay tahay iyo sidoo kale inagoo isku darnay relationka fiirinay labada variable ka dhaxeeya doorka baarlamaanka uu ku leeyahay nabadda iyo sidoo kale sooyaalka baarlamaanka Soomaaliya oo runtii aan ka soo bilownay markii ugu horeysay intii wasaayada ama daaqliyada lagu jiray dalka uu ku jiray jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Talyaaniga u saartay inuu dalka xorriyad gaarsiiyo 10 sano oo 54 markii ugu horeysay la sameeyay wax la yiraahdo golaha la talinta oo runtii Talyaaniga ka shaqeynayay ilaa maanta baarlamaanka tobnaadii aan maanta haysano inaan runtii aan maxay ahayd ka soo hadalnay waxay noo ahayd maalmo runtii aad u fiican oo sameynay discussion iyo doodo ku saabsan markastaba mowduuca aan ka hadalno runtiina ardaydu iyo dhalinyaradan maxay ahayd wanaaga badan ee ka soo qayb galay ay sameynayeen doodo qurux badan iyo maxay ahayd brainstorming ama maskax shiil sidii maxay ahayd aan su'aalahan is weydiinay ay u soo saarayeen waxay ahayd maxay ahayd aad u qurux badan waa runtii waxaan is leeyahay saddex maalin sida Dr. Saash sheegtay nama kaafin karto waa yaani marka laga hadlaayo ama biiska laga hadlaayo ama hal laga hadlaayo baarlamaan waa wax aad u weyn gaar ahaan biiska kale waa wax aad u weyn laakiin inagu waxaan fiirinay sida ugu haboon ee loo fahmi karo sida ugu haboon ee u fahmi karno ayaan u soo koobnay waxay la tahay inaan runtii aan wax fara badan oo aad u fiican aan ka qaadanay waxna way noo dhimayeen oo waa la hubaa runtii bini aadamku ama maxay tahay ama cilmigaba dhowr maalin iyo maalmo loogama xaqabeeli karo waxaan rabaa inaan aad runtii ugu mahad celiyo macadka Samadoon oo runtii maxay tahay la'aantii aysan noo suuragali lahayn macadka Samadoon anigu hore isuma aqoonin dhowr jeer aan arkay maxay ahayd ifantiyo ku saabsan fields kala gedisan oo ay qabteen oo ugu dambeeyay kii ka horeeyay ee batroolka looga hadlayay wasiir Muxtaar wasiirka hore wasaaraddaas uu soo jeediyay iyo kuwa kale ka horeeyay waxaan garowsaday marka in meeshaas ay runtii ay door iga banaan yahay inaan bal wixii aan ka aqaano inaan ku biiriyo sidaasaan ula soo xiriiray Ustaad Aways ama agaasima Aways qaralaasi isaga ii soo jawaabay waan u sheegay inaan sidaa rabo waan runtii iga aqbalay waa u mahad celinayaa markii aan imidna madaxda kale ee macadka iyo dhalinyarada kalena runtii aad ii soo dhaweeyeen waana runtii arrin farxad badan marka waxaan rabaa inaan arrintaas aad uga mahad celiyo runtii door maxay tahay muhiim ah ayay qaateen waxaan kaloo runtii aad loo iloobi karin iyadana ka soo qaybgalkiina inaad adinkuna danaysaan inaad maxay tahay yaani waxa aan sheegnay aad qaadataan oo xambaartaan umada kalena aad gaarsiisaan marka adinkana waa idin mahad celinaynaa macadkana waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo ka codsanaynaa inay sidoo kale noo agaasimaan kuwa lamida oon xataa annagu ka faa'iideysano oon fariisano dad mutacalimiin noo raadiyaan filis kala gedisan sida qaarkiinba aad sheegteen in laga wada hadlo yaani halkan la yimaado la jeediyo waa ayadana ugu baaqaya runtii waan rajeynayaa inaan arintaas noo sameyn doonaan anigoo og abatiyaadka ay u hayaan inay maxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo inta tacliin doonka ah
ay arintaas ka qabtiraan aad iyo aad aan runtii ugu mahad celinayaa mar kale waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inaad aad ii qadiriseen iga dhageysateen wada doodnay wixii maalmihii la soo dhaafay waqtigu waa gaaban yahay waxaan isleeyahay hadal badan oo hadda jira ma jiro waa xafladda soo xiritaanka inoo tahay waa idin hambaleynayaa macadkan waa hambaleynayaa madaxda kale ee xildhibaanada iyo doctorasadana waa runtii u celinaya nagu sharfay inay nagala soo qayb galaan xiritaanka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin seminaarkan aad ku quruxda badan leh saaxiibkay walaalkay xildhibaan garaad iyo xildhibaanada kaleeto ee saaxiibada meeshaan ku wadanahay waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradan aad ku quruxda badan leh inaan maanta waqti la qaato seminaarka soo gabagabeyntiisana aan kala soo qayb galo runtii aadaan ugu faraxsanahay waxaan kaleeto aad ugu faraxsanahay marar badan seminaaro badan waan tagay inta badan seminaarada aan qaadanayna waxaan la qaadanayay dad iga da'weyn maanta waxaan ku faraxsanahay anigoo matalaya gabdhaha dhalinyarada Soomaaliyeed kana tirsan golaha shacabka waxaan jeclaan lahaa inaan mar walba micigiina ahaado oo idinka la joogo waxaan ku faraxsanahay anigoo dhalinyaro ah inaan soo galo waxaan u soo galana waxay tahay in aan tuso qof walba oo dhalinyaro ah inuu door ka qaadan karo dalkiisa qof walba oo Soomaali ah dhalinyaraha ahaado qof weyn ha ahaado u baahan yahay dalka inuu u istaago oo wax u qabto haddaan dhalinyaro nahay anaga dalkeena samata bixin karno oo kor u qaadi karno dal walbana dadkiisa dhalinyarada kor u qaado inta badan waayeelada ama dadka naga waaweyn waqtigoodu way soo qaateen aan u istaagno saan maxaa la dhahaayay wadankeena aan u samata bixin leen baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeedna u garab istaagi lahaydeen waa badannahay ilaa adii 40 aan ku nahay inkastoo liigu tiriyo dadka ugu yar inaan ka mid ahay laakiin waxaan aaminsanahay in liga yar yahay marka waxaan jeclaan lahaa in meetinada aan seminaarada aan badino insha Allah markuu si fogaanayo waa mahadsantiin aad ugu faraxsanahay macadka Samadoon seminaarkan uu maanta idin dhameeyay oo idin gabagabada idin ah oo la xiraayo waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyay macadkan Samadoon horta shaqo aad u culus ayuu wadankan u hayaa يعني كهذا الكبيس كنبض الصومالي وحبضنا دبعته كسر جرتي وحن كلو قصي فرح سنة هاي دليرة أنت فرد إذا ما أنت أو ديار إن أي وحبر الشدودي وودنك لقى هذا لاي نبض برلمان شرع الدجنتي أي وحكبرتان xildhibaan garaad oo soo asalaamaanta ma sha Allah idin siiyay seminaarka wax badan ka hadlay sida hadda warbixinta hadayd ku maqlaayeen ku dhageysanaynay aad buu mahadsan yahay dhalinyar oo maanta ka hadlaayo oo sharci dejintii idin sharaxayo oo seminar ahaan idin ku soo oo ka hadlaayo ilaa iyo 1954kii waqtigii wadankeena xorriyadda uu qaadanayay oo laga hadlayay Soomaaliya iyo waqtiga maanta la joogo oo da 60 sano ka soo wareegtay tinga waa 60 waa dhantahay marka waxa farxad weyn ah Soomaalida inay ku baraarugsan tahay maanta dhalinyaradii inay hami badan ku jiro wadankan sidiisaba waxa soo samata bixiyay oo u istaagay inay xornimo qaataan dad dhalinyaro ahaayeen 13kii SYL waxay ahaayeen dhalinyaro da'dooda kan ugu weyn 18 jir inuu ahaa umaleynaa waa ka sii wada yaraayeen taariikhda dib loo fiiriyo oo SYL ilaa maanta ayaa lagu xusaa dhalinyaro Soomaaliyeed inay waxtar leedahay inay wadan xoreyn karto inay markaas dadkii waaweynaa joogay oo Soomaaliya markaas ay ku baraarugsaneen siyaasad ayagoo gumaysi ku jiro dadkii u istaagay wadankooda inay sabata bixiyaan oo ay tashadaan oo si sirriya ku showraan oo meel oo qarsoodi ah ku shirshiraan oo wadankii xorriyad ku qaataan dadkii soo dadaal dhalinyaro ahaayeen ma sha Allah tabarakallah dhalinyaradena maanta gabdhaha iyo wiilasha u taagan in ay aqoontoodii kuwa jaamacadaha dhigto iyo kuwa macdiyada dhigto oo aqoontoodii siyaasadeed dhisaayo dadkoo dhan siyaasi ma wada aha laakiin siyaasadda qofba meeshuu ka gaaro ayuu wax ka qaban karaa wadankana waxa uu u baahan yahay in loo istaago meel fiican oo hadda maraya waxa laga soo gudbay marxalado badan
soddonkii sano lasoo dhaafay wixii lasoo maray dhalintiinaan badan waxaa laga yaabaa inaad dagaaladii kadib dhalateen qaarna iyagoo waxba aqoonin ama aan waxba ogeyn uu dagaalka dhacay aniga runtii waxaan ahay markaa idin leeyahay midada ejaan ahay dagaalka markuu dhacay markaasaan wadanka ka tegay anoo dhalinyar marka intaasna weligay wadan kale oon tagay oon ku nagaaday oo qalbigayga nagi ku noqday ma jiro weligay mar walba waxaan ku haminayay goormeed Soomaaliya ku noqonaysa goormeed Soomaaliya wadan kasta oon tagana waxaan jeclaysanay markaan saa u fiiriyo sarahan cadcadoo dhaadheer iyo jidadkan nadiifka ah dadkoodii waa sameysteen anageena waa iska jijabinay goormo wadankeena marshibiyada lagu soconayo oo meel laami marshibiyadi iyo cows cagaaran ma hana wax kale aan arkaynin runtii anaga waa ka nimco badannahay dadkaas sidaas sarahaas muraayada dhistay ma haystaan waxa anaga haysano wadankeena ani hadda seminaarkii hore waa idaafay wuxuuna igu dhaafay maalintii qaraxa dhacay anoo labisto diyaar garoobay qaraxna xaafadaydu ahaa meesha agteen waa taasaan ku baaqday marka waxaan waliba aad u jeclahay markaas batroolka wasiirkii batroolka idin yimid oo maxamed muqtaar oo seminaarka idin kala qayb galay kulliyiintii inaad wada joogteen in kale aadan u danaynayaa dadka batroolka aad u danayaan ahay sababtoo ah wadamo aan batrool lahayn oon shidaal haysanin oo macdan haysanin oo annaga buuraheen haddii la baaray kulli dahab ku wada jiray iyo macdan iyo uranium iyo waxyaabaha qaaliga oo adduunka looga baahan yahay batroolkeena bad iyo bariyo ku jira gaaska dabiicigaan leenahay haddana ma naqaan sida looga faa'iideysto hadda ka hor waxaa dhacay seminaar oo UN qabanaysay oo wadamadaas kale aan uga qayb galay waxaa la soo saaray nin Afrikaan ah oo dhagax weyn oo kiilo la eg oo diamond ah gacanta ku haysto oo dhintay qalfoofkiisa UN waxa ka dhigato kaas dad tusaale ka dhigato gacantu ku haya baahiyo oo dhintay waa billions dollars markii la qiimeeyay marka anaga hadda batroolkeeni badda ku jiro bariga ku jiro gaaskeena meesha ugu dhow xamar banaankiisa deexdan hadda tagtid gaasa ka buuxa meel kasta oo haddana aan sidaan nahay oo dhulkeeni jidadkeed wadankeena waa loo soo shaqo tagayaa dhalinyarada la rabo inay ku baraarugto wadankan dhisidiisa hadda seminaarkan wuxuu ku saabsan yahay sharci dejinta iyo baarlamaanka siduu u shaqeeyo baarlamaankeeni hadda nidaamka aan haysan waa dimuqraadi isla markaasna dastuurkeena wuxuu ku salaysan yahay diinta islaamka kama baxsan karno wax diinta islaamka dhaafsan laakiin dimuqraadiyadana waa ina uga dayanaa wadamada dimuqraadiga ah wixii sax ah oo naga quseeya wax kasta anaga ma dhabaqsan karno ma ku dhex qasmi karno marka dastuurku waa inaan ku dhaqanaa marka dastuurkeeni maadaama waxa loogu saleeyay wadankeena waa 100% wadan muslim ah Soomaaliya iyo waxa ka jira wadamo yar oo farakotiris ah oo waliba iyaga laftigooda qaarkood iyagoo 100% muslim ah haddana waxay leeyihiin budiista iyo diiman kale iyo diin la'aan iyo oo dadka mulxidka ah laakiin anaga 100% muslim aan nahay marka waa in dastuurkeena oo diinta ku saleysnaada shaqada baarlamaanka uu qabanayana kulli seminaarka saddexdii bariyaad ku dhameystay waa jeclaan lahaa inaan waqtigaasna ka soo qayb galo laakiin insha Allah sidii haday doctorays Aasha iyo xildhibaan garaad iyo xildhibaan Safiya ay ka dhawaajiyeen seminaarada ila badiyo oo hadda kadib anaga laftigeena maanta waa noo koo insha Allah waa ka soo qayb gali doonaa seminaaradiina marka laga hadlayo nabadda waa muhiim nabadda waxay ku dhex jirtaa dhalinyarada shacabkana waa dhalinyaro marka ayaga mustaqbalkii wadanka ah baarlamaanka doorka ugu weyn oo nabadda ku leeyahay haddii baarlamaankaas uu shacabku matala baarlamaanka bulshadu matala marka mar walba in laga hadlo bulshada la dhexgalo inkastoo duruufo ay noo saamaxeen inaan bulshada dhexgalno oo aanan tagi karin deegaan doorashooyinkeeni meeshaan ka nimid laakiin sida aan damacsannahay hadduu ilaahay qadaro
in deegaan doorashooyinka la tago meel kasta qof walba meel uu ka soo jeedaa la tago dadka muqdisho jooga intiina hadda wada jooga muqdisho waxa laga yaabaa inaad gobollo qaarkiin gobollo ka timideen oo gobolada la tagi karo oo adinka laftigiin inaad wacyigelin samaysaan oo bulshada maanta adinkaa nooga roon oo bulshada dhexgeli karo marka in bulshada si fiican loo dhexgalo oo la wacyigeliyo oo dimuqraadiyadda la baro oo dan la sameeyo oo muxuu ahay sharci dejinta laftigeeda wacyigelinta hadda wixii ka dambeeyeen in lagu wacyigeliyo dadka TV-yada raadiyaasha laftigiina inaad ka hadashiin raadiyaasha oo barnaamijyo iyo la sameeyo oo la xiriirtaan oo codkiina yacni oo shacabka gaarsiisaan waana jecelnahay baarlamaanka inuu doorkiisa ugu fiican qaato bulshadu matalaa shacabka Soomaaliyeed hadda baarlamaanka wax badan oo qaldanay ka aaminsan yihiin markii baarlamaanka commission kale waxaan marka waxyaabahaasna yani motion waa sharci waa wax xuquuqda xildhibaanka uu leeyahay xildhibaanka sidoo wax ku saxi karo motion wax dumiye motion waxa jiro oo mararka qaarkood qaladaada iska dhaco laakiin shacabka siday hadda u fahansan yihiin si aan ahayn loo fahansiiyo waxyaabaha yani warqad yar oo la qoro 10 qofood oo dhahdo xitaa maanta waxaas in laga hadlaan rabnaa motion lahaa ma aha yani dagaal ma aha xumaan ma aha laakiin warqadaas yar oo 10 qof ay qortay oo gudbinayso inay waxooda ku sheegtaan ay rabaan yani waxay soo qoreen motion marka la dhahayo marka waxyaabahaas laftigooda inaad dadka baarlamaanka laftigiisa inaan isxoreynaan rabnaa anaga xitaa parliamentarian hadda oo aan waxaas ka dhaadhicino dadka waxaa loo baahan yahay qof kasta oo Soomaali ah in uu codkiisa shacabka uu u taagay inuu asagaba yahay parliamentarian inuu ogaado baarlamaanka ma aha qofka fadhiya kaliya baarlamaanka waa shacabku matala waa golaha shacabka la dhahaa marka waxaa dhalinyaradiina idinku boorinaya idinku goobabinaya inaad u soo diyaargarowdaan mustaqbalka qof walba oo daneynaya inuu siyaasadaas oo sidoo wadankiisa wax uu qaban lahaa qof walba kursigiisa qof aan ku fadhiyo inuu soo diyaargaroobo sida barto wixii xitaa haduu sadaneenaynin dadkoo dhan wada noqon karaan dabcan laakiin qof walba inuu ku baraarugsanaado meeshuu taagan yahay haduu suuqa joogo haduu jaamacadda joogo haduu iskoolka joogo in uu siyaasadda wadanka u la socdo iyo wadankaas sidee wax lagu sixi karaa sidee wax lagu toosin karaa wixii qaldama xitaa qaarkood waa sheegi kartiin wixii qaladaad ka jiro inaad ku foojignaataan ku baraarugsanataan ayaan rajaynayaa insha Allah hadalkeen intaasaan kusoo koobay aadaan idinku faraxsanahay aadaan idinku mahadnaqayaa Samadoon dhalinyarada runtii barnaamijkan nagala soo hadgalay بعد صحافة دمانتين واسكت وجن ورأي وحين يكون سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا مرينا يا هل كان هذا الإجماع فرع وحين يكون كليا إن نوم هذا اليومتي برامج كانوا صورة كلا على أنتي كعك جيستي أو هو الرأي حلو عن كراد أو كنت وقت بدن قليل سد هذا مرينا أو سمنار كان سعودنا الناس وجدين أي سد وكالة الدنيا دي برامج كان فلودين يسي هي تيم كسمدون هذا الجيل تاعنا إنه برامج كان سبيع عن قدمه دمانتين واسكت وجن وحمد الله ومحسنتين كنت جزاك الحسين جزاكم الله خيرا سيرسمي برامج كحنا وسحر دوم حلبان ورسمه وعد حلبان يسكو حكسدان لكن بروتوكول داخل ونقرا نونيان waxaan rabaa inaan u yeero hadda xildhibaan warsame maxamed xasan ama warsame joodax soo barnaamijka lagu soo xiro waana maasantay saaxiibadeeya maamulka Samadoon dhalinyarada barnaamijka بريهان منطقة كده جرتي صحافة دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي أدبان سلام يا أونا فرح سنهاي سمنار كان للي يرد أي صبدان منطقة أي بريهان لو ذاكتي سيدا هرب اللي يري أو حلبان نذو دهان dadka bari iyo maanta walabaatiin ama aqoontii ama u dhalin yar inay dalka shaqadiisa iyo baarlamaankiisa iyo howlihiisa ay qabtaan wanaag iyo insha Allah firfircoonina la yimaadin ayaga adinka u dhalin yaray dadkan ka sugaynaa tiin waa rijeynayna
inaad wixii hadda hawsha ku jirana wax ka toosidaan waxa berritana aad isu diyaar garaysaan oo inaad qaban doontiin xaqna u leedihiin mudantiina aad ku fakertiin waxaan leenahay oon qabnaa insha allah dalku haddii waxyaabo badan oo siyaasadihiisu way isbedelayaan xisbiyada iyo mataqaanaa isbedelada xilliga intaba waxaan rajaynaynaa insha allah inaad berrita soo geli doontiin insha allah ma siyaasadda iyo baarlamaanka iyo dhammaan inay waddo idiin furan tahay qoftii alla u calfo iyo mataqaana dadka mataqaanaa ka qayb noqdaba waa soo dhaweynaynaa gabdhiya wiilalba dalka iyo wanaagiisana haddii sidii horeba xildhibaanadii iga horreeyay u sheegeen dadka inay jiilalka inay wax bedelaan horumarka iyo dadku inuu tadawur fiican gaaro horumar gaaro dadka nolol loo abuuro nabad loo abuuro mataqaanaa iyo talooyinkooda iyo ku dhiirigelinta dowlad iyo baarlamaan intaba isla dowladdiiyo intaba inay ku dhiirigeliyaan oy tala ka bixiyaan oy dood wadaagyada ka hadlaan oy facebookyada iyo idaacadaha iyo meelo badan ka hadlaan oy taladiina ku dhiibtaan doodaha uga qayb gashaan wixii dadka u dana wixii adinka idin dana wixii ummadeena Soomaaliyeed u dana intaba inaad ka hadashaan dadka laga rabo ama wax bartay ama aragtida Ilaahay bixiyaba adinkii in la mid ah ku jirta waa rajaynaynaa inaad waxyaabahaas oo dhan ka tala bixidaan inaad mataqaanaa dawladda iyo baarlamaanba مثال أنا سيدي حلباندي صاحبتي ده يقول وحنا لكو هذا موشمة إيو وشغادة بارلمانك مقع وحوي محمد أيضا اللي ويراده محمد اللي قام بدلي كرو بارلمانك إنه موشين كل شغايو إنه شرعي كل شغايو وشغاديس أديكو أما يري كرتين وسير حلبان منطقة مدحوين رئيس الوزراء لحسابتك أنا حق له أنا نلو إدماضي وبالشدة الصومالية وجا وكيلة هذا الله حساب تنون حسابه ويرنو قفت أمانة لودي بي هنتيد أمد ولاد هاي حل أمد ولاد لودي marka hadan qofti xilka umad leedahay haysay aan la xisaabtamin waxay rabtay sameeyeen hadan la xisaabtana hadii marka ayaguna ay wax ismarmariyaan ay waxyaabo la isku aadiyo nala ka warwareego hadii xaaladu adkaato inaan xumaan doonahay inaan bulshadeena iyo dhalinyaradeena loo tusin adinkuna inaad ku garab siidaan waxa weey waxaan dhihi lahaa mataqaana daan idinku badiyay raaliga ahaada waxaan leenahay guuleysta waxaan leenahay insha Allah ku berito iyo maantaba dadkeen iyo dalkeena badbaadiyo tala fiican iyo ra'yi fiican iyo maskax fiican iyo hawada iyo badiya biri inaan u ka danaysano oo mataqaana ka tabcano ka shaqaysano kuwii maskaxdoodu keeni lahayd Allah idinka dhigo aad mahadsantihiin